kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Warbixinadeennan waxaan idinku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha Yuhuudda oo tagay Abu Dhabi isla markaana furay mid ka mid ah safaaraddii ugu horeysay ee ugu weyneyd ee Israa'iil ee Khaliijka, iyo kooxaha Falastiiniyiinta oo ku dhawaaqay in Abu Dhabi ay tahay cadowga ugu weyn ee Falastiin iyo muslimiinta. hogaamiyaha siyaasadda ee Xamaas ayaa tagay Lubnaan wuxuuna la kulmay Xasan Nasrallah, wakiilka ugu sareeya ee gobolka ee Iiraan, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo dagaalka ka dhanka Israa'iil. Warbixin ayaad dhegeysan doontaan. iyo Ilhan Cumar oo mar kale kaga yaabisay Maraykanka iyo Israa'iil, isla markaana sheegtay in sharci darro ay tahay duqeymaha Maraykanku uu ka wado Ciraaq iyo Suuriya oo ku xadgudbaysa madax bannaanida dalalka Islaamka ah. sidoo kalena sheegtay in weligeed aysan ka qoomamayn doonin isbarbardhigii ay ku samaysay Maraykanka, Israa'iil, Xamaas iyo Taliban. iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. xildhibaan Ilhan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa waraysi ay siisay telefishinka CNN waxay ka warrantay arrimo dhowr ah oo aad u tiro badan siyaasadda gobolka, gaar ahaan kan Maraykanka. waxayna sidoo kale ay taxliil ka bixisay hadalkeedii muranka dhaliyey ee isku barbardhigtay Israa'iil, Maraykanka, Xamaas iyo Taliban. waxayna sheegtay in wax laga xumaado ay tahay halka ay sii wadaan xisbigeedu wanaagga Maraykanka, in dhinaca kale ay sii wadaan dhibaatada. waxayna sheegtay in weligeed aysan ka mid noqon doonin xubnaha Nazi Balosi lagu wado inay magacaawdo ee baadhaya dhacdadii Capitol oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Ilhan Cumar ayaa waraysigaasi waxaa lagu weydiiyey in Maraykanka uu qiil u haysto duqeymaha Maraykanka ee dhowaan uu ka fuliyey dalalka Ciraaq iyo Suuriya. waxayna sheegtay inaysan garanayn sababta Maraykanka iyo maamulka cusubi uu sii wado waddadii maamulkii hore ee Trump, iyadoo lagu xadgudbayo madax bannaanida dal kale. sidoo kalena ay weli Maraykanku sii wado dagaalada furan. Ilhan Cumar oo la weydiiyey in qiil u haysto Maraykanku duqeymihiisa waxay tiri, maya, uma malaynayo. waxaanu maqalnay tilmaamaha maamulka, balse weli waxaanu codsanaynaa in la caddeeyo sababta duqeymahaas. waxaan u malaynayaa aad bay muhiim inoogu tahay inaan aqoonsanno wareegga qalalaasaha inaysan qofna badbaadin doonin. Ilhan ayaa sidoo kale sheegtay sababta Maraykanku mar kasta ugu celceliyo isdifaacidda. waxayna sheegtay in Ciraaq ay ka falcelisay duqeymaha in madax bannaanideeda ay dhaawac ku tahay. Ilhan Cumar ayaa tiri, waxaanu maqalnay dowladda Ciraaq oo cambaaraynaya, waxayna ka hadlayaan sida ay u saameynayaan madax bannaanidooda. kan waa maamulka la doonayo inuu hogaamiyo oo looga dambeeyo siyaasadda Ciraaq, waana dowladda loo baahan yahay in dalkeeda lagu xushmeeyo. Ilhan ayaa intaa ku dartay, su-aashu waxay tahay, iyadoo Ciraaq weli codsanayso in Maraykanku uu ka baxo, maxay tahay sababta weli aynu u joogno halkaa? ma sax baa in aan sii wadno inaan dhiirigelinno dagaalada sokeeyaha ee Syria iyo Ciraaq iyadoo ciidamada Ciraaq ay joogaan? Ilhan Cumar ayaa sidoo kale waxay sheegtay waxa ay tahay inaan isweydiino sharciga isdifaacidda ee inta badan aan maqalno. sidee loo adeegsan karaa? ma isdifaacid ayaa loo adeegsan karaa dagaal shaqsi gaar ah muhiimad u ah? dhaga kale, Ilhan Cumar waxay sheegtay inaysan ka qoomamaynayn hadalladii dhowaan ay isku barbar dhigtay Maraykanka, Israa'iil iyo kooxaha Xamaas iyo Taliban. waxayna sheegtay inay aad uga fog tahay eedaynta asxaabteeda ee Yuhuudda arrinta iyadu ay tixraacday. waxaan u malaynayaa inay runtii muhiim tahay in dib looga fakero halka aan isku dayay inaan ka hadlo. sida iska cad, waxaan la hadlayay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Bilken. Ilhan Cumar ayaa sidoo kale sheegtay inay soo dhaweynayso wakhti kasta asxaabteeda inay weydiistaan wadahadal furan si ay wax uga barato iyaga, iyo si la mid ah inay soo dhaweynayso in iyagu ay wax ka bartaan iyada. Ilhan Cumar oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri, waxaan u malaynayaa in tani muhiim ay tahay xubnaha inay aqoonsadaan in ay qayb ka yihiin cadaaladda dunida, laakiin hadda uma muuqdaan in ay dhiirigeliyaan in la raadiyo cadaalad dunidoo dhan.
waxaan u malaynayaa inaan sii wadi doono taas. tani muhiim ayay igu tahay aniga sida qof garanaya oo dareemaya khibradda cadaalad darrada. Ilhan Cumar ayaa horay hadal ay uga sheegtay dagaalada Maraykanka ee gobolka. waxay buuq ka abuurtay Maraykanka iyo xubnaheeda. goor sii horeysay ayay Twitterka ku qortay, waxaan aragnay xasuuqyada aan la qiyaasi karin ee ay geysteen Maraykanka, Xamaas, Israa'iil, Afghanistan iyo Taliban. waxaan weydiinayaa xogayaha arrimaha dibadda Blinken halka ay tahay in dadku ay u aadaan cadaaladda. warbixinada kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid oo ah ninka soo dhisay dowladda wadaagga ah ahna ra'iisul wasaaraha ku xigi doona ninka xukunka la wareegay ayaa tegay Talaadadii Dubai safarkiisii ugu horeeyay, waxaana uu ka furay halkaasi safaaraddii ugu horeysay ee Israa'iil ee Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas wuxuu ku tilmaamay heshiisyada ee u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta dhalanteed mana noqon doonaan mid guulaysta. khudbadda furitaanka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid wuxuu sheegay inay rabaan in nabad ay la yeeshaan dariskooda, isagoo raaciyey meelna uma soconno bariga dhexe, waa dhulkeenna. waxaan halkani u nimid inaan ku baaqno dhammaan waddamada gobolka inay aqoonsadaan tan oo ay yimaadaan wada hadal. madaxweynaha Falastiiniyiinta Cabbaas ayaa sheegay sida qof kasta uu ogyahay waxaanu hor istaagnay waxaa loo yaqaano heshiiska qarniga, waxaana caddaatay in waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ama Abraham ay yihiin dhalanteed ma guulaysan doonaan. furitaanka safaaradda Israa'iil ee Imaaraadka Carabta ayaa imanaya xilli 4 dal oo Carbeed ay horay ula seexdeen Israa'iil heshiis nabadeed, kuwaasi oo kala ahaa Imaaraadka Carabta, Bahrayn, Suudaan iyo Morocco. heshiisyadani oo gacadhaysiiyey Falastiiniyiinta iyagoo ku tilmaamay khiyaano iyo inuu jebinayo heshiiskii Carabta, waxayna ka cadhaysiisay shacabka Carbeed. Maxamuud Cabbaas ayaa intaa ku daray, nabadda iyo amniga waxaa lagu gaadhi karaa oo keliya dhammaadka gumaysiga iyo in shacabka Falastiin ay gaadhaan xuquuqdooda xorriyadda iyo madax bannaani, iyo in la helo dowlad Falastiin oo caasimadeedu tahay bariga Qudus. bayaan ay soo saareen Xamaas waxay ku sheegeen in furitaanka safaaradda ee Israa'iil ee Imaaraadka ay ka turjumayso ku adkaysiga Imaaraadka ee dembiyada ee ay ka gashay ummadda Carabta ah markii ay heshiis la seexatay Israa'iil. iyadoo dhaga kalena Ismaaciil Haniya, madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas, uu boqosho ku tegay Lubnaan oo uu kulan la qaatay Xasan Nasrallah, xogayaha guud ee Xisbullah ee Lubnaan iyo wakiilka ugu sarreeya ee gobolka ee Iiraan. ilo xogogaala oo reer Lubnaan ayaa sheegay in Iiraan ay samaynayso wax kasta oo karaankeeda ah si ay u daboosho doorka Masar ee ay ku muujinayso saamaynta ay ku leedahay Xamaas ee ka dambeysay xabad joojintii ay gaadheen Israa'iil iyo Xamaas. bayaan ay soo saareen xidhiirka warbaahinta ee Xisbullah oo u baahiyey telefishinka Almanaar ayaa lagu sheegay in kulankani uu ahaa dib u eegid ku saabsan dagaalkii seefta Qudus, sababihii keenay ee Falastiin iyo Carabta iyo Islaamka iyo sidoo kale caalamkaba. bayaanka ayaa intaa ku daray in tani ay awood siinayso iska caabinta Falastiin, iyadoo leh saamaynta ay ku leeyihiin kooxda Lubnaan inay qayb ka galaan midnimada ay la wadaagaan Falastiin. dhinaca siyaasadda ee Lubnaan oo faallo ka bixiyey booqashada waxay sheegeen in Haniya uu tagay Lubnaan si uu muujiyo dareenka ay la wadaagaan. Haniya ayaa sidoo kale kulan la qaatay afhayeenka baarlamaanka ee Lubnaan, waxaana uu kala hadlay sidii loo ansixin lahaa xuquuqda madaniga ah ee dadka reer Falastiin ee ku nool Lubnaan. ugu yaraantii 174,000 oo qaxoonti Falastiin ah ayaa ku sugan 12 xero oo ku yaala Lubnaan.